kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada warka rasmi radio qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee degmada Balad Xaawo wasiir ka tirsan Puntland oo sheegay in hubkii Puntland qabatay inuu xalaal u yahay dowladda federaalka oo sheegtay in hubkii saarnaa markabka Sea Wall uu u socday ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya. Fahdi Yaasiin oo fariin diray Siciidanay iyo mucaaradka Muqdisho Kuuriyada Koonfureed oo xaalad dhalmo la'aan ah la daala dhacaysa. qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso leh ayaan idinku haynaa warka habeenimo ku soo dhawaada warkii oo fidsan. warar aan ka helayno ilo wareedyo maxalli ah oo ku sugan degmada Balad Xaawo ee gobolka Gado ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan maleeshiyaadka la safnaa Cabdirashiid Janan madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Mudane Maxamuud Sayid Aadan iyo wasiirka amniga Jubbaland Janaal Dhuumaal ciidamada soo dhiibay ayaa la sheegayaa inay ka qayb qaadanayeen dagaalkii ka dhacay degmada Balad Xaawo ee gobolka Gado balse hadda ay ku biireen ciidanka Jubbaland ee degmada Balad Xaawo. dhinaca kale isgaarsiinta magaalada Balad Xaawo ayaa hawada ku soo laabatay iyadoo haddana dib hawada uga baxday. Puntland ayaa waxa ay si degdeg ah uga falcelisay bayaan ka soo baxay dowladda federaalka ee Soomaaliya oo looga hadlay markabkii hubka siday ee ku xirnaa dekedda magaalada Boosaaso. wasiiru dowlaha madaxtooyada Puntland ayaa waxa uu sheegay in Puntland uu hadda hubkaasi uu xalaal u yahay ay jimcihii gacanta ku dhigtay maadaama dowladda federaalka Soomaaliya ay sheegatay. wasiiru dowlaha madaxtooyada Cabdifataax Cabdinuur oo erayo kooban uga falceliyay tallaabada dowladda federaalka ayaa ku tilmaamay in haatan uu xalaal u noqday hubka ay hayaan ee uu xambaarsan yahay markabka Sea Wall ee hadda ku sugan dekedda magaalada Boosaaso. dowladda Soomaaliya ayaa Puntland waxa ay ka dalbatay in si degdeg ah ay u sii deyso markabka iyo qalabka uu sido iyadoo sidoo kalena ku goodisay inay dhaqdhaqaaq ciidan ay ku soo furan karto markabka ku xiran dekedda magaalada Boosaaso. dowladda Soomaaliya waxa ay cambaaraysay markabka Puntland ay qabatay ee ku xiran dekedda magaalada Boosaaso iyadoo sheegtay in markabkaasi lagu sameeyay afdub. markabka ayaa waxa uu siday ayay tiri dowladda federaalka ee Soomaaliya qalab ciidan oo loo waday xerada Turkisom. sidaasna waxa ay ku soo saartay bayaan dowladda federaalka ee Soomaaliya. agaasimihii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya Fahdi Yaasiin ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka waxa uu fariin ugu diray madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni mucaaradka samata bixinta. fariinta koowaad ayuu wuxuu u diray madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni wuxuuna ku yiri madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni waxa uu musharax u yahay xilka madaxtinimada ee heer federaal haddana wax qadarina uma hayo dowladda federaalka ee Soomaaliya isagoo oo Puntland xukuma. haddii uu sidan sharciga ugu tumanayo maxaa laga filan karaa mustaqbalka? waa nasiib darro weyn in uusan kala saaraynin khilaafka u dhexeeya isaga iyo Xasan Sheekh Maxamuud iyo awoodaha sharciga ah ee dowladda dhexe. sidaasi waxaa yiri Fahdi Yaasiin oo soo qoray fariin uu kula hadlayay Siciid Cabdullaahi Deni. sidoo kale waxa uu fariin u soo qoray mucaaradka samata bixinta ee fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho. dowladda federaalka ee Soomaaliyana waxa ay markii ugu horeysay ay ka hadashay markabkii siday sanadda ciidan ee Puntland ay gacanta ay ku dhigtay. war-saxaafadeed ka soo baxay dowladda ayaa lagu sheegay in qaab afduub ah loo haysto markabka oo u socday dekedda magaalada Muqdisho isla markaana siday sanad ciidan oo loogu talagalay xarunta tababarka ciidamada ee Turkisom. arrintani waa afduub ka hor imaanaya dastuurka iyo madax bannaanida dowladda federaalka ee Soomaaliya sida uu dhigayo qodobka 54 ee dastuurka ku meel gaarka ah. dowladda federaalka ayaa iska leh mas'uuliyadda iyo ilaalinta badaha amniga. sidaasi waxaa lagu yiri war-saxaafadeedka ka soo baxay dowladda federaalka ee Soomaaliya. sidoo kale dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa codsatay in markabkaasi si degdeg ah loo sii daayo maadaama si sharci ah uu ku socday iyadoo oo Puntland loogu baaqay inay joojiso arrimaha dhaawici kara madax bannaanida dalka. hadalka dowladda federaalka ayaa ku soo aadaya iyadoo oo markabkaasi ay Puntland ay gacanta ku hayso muddo 5 maalin ah uuna ku xiran yahay dekedda magaalada Boosaaso. imankana akhbaaraadka dhinaca dibadda. koonfurta Kuuriya ayaa diiwaan gelisay kororkii ugu weynaa ee dhalashada carruurta hal bil gudaheed muddo 14 sano ah. tirada ilmaha la dhalay bishii May ayaa korortay ku dhowaad 4%. kororkan ayaa lagu sababeeyay tirada guurka oo kordhay iyo haween u badan kuwa ku jira da'da bilowga sodomeeyaha oo aqal galay. si kastaba ha ahaatee koonfur Kuuriya weli waxa ay la daalaa dhacaysaa heer dhalmo ah oo hooseeya. haweenka dalkaasi ayaa celcelis ahaan noloshooda dhala wax ka yar hal cunug taas oo aad uga hooseysa heerka looga baahan yahay
si dadweynuhu uu u ahaado mid degan oo aan hoos uga dhicin tirada looga baahan yahay. warkii aad kala socoteen rasmi radio daawadayaal waa naga intaa. warka waxaa idiin soo jeedinaya anigu Axmed Cabdi Maxamed Axmed Toronto. intaan ku kulmayno warkan lamida waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.